عبد المالك مسعود وهو سني صحفي سمفلاء ورنتي قبته waxyaabaha qaban dadka inta badan xukuumadda haato shacabka kala haato iyo warbaahinta kale ee gobolka iyo dalkuba waxyaabaha qaban buu qabtay Cabdimalik Musaacid wuxuu caawin jiray oo samafali jiray uu guna gargaari jiray dadka masaakiinta ee ku dulman ku dhibaataysan isla markaasna toostu iyo xanuunka iyo gaajada ku hayso magaalada Burco ayna cidna ka warhayn xukuumaddii soo doorteen maamulka gobolka ka degmada iyo shacabka kale ee waxaysta waxyaabaha inuu sameyn jiray buu sameyn jiray runtii Cabdimalik Musaacid xaligiisa aad baan uga xunahay waxaanu dalbanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan xorriyadiisa helo Cabdimalik Musaacid waxaan leeyahay haduu khaldamay waxaan leeyahay dawladda cafiyo sababtoo ah bini aadan baynu nahay waan khaldami karnaa bashar baynu nahay waxa la yiraahdaa Carabiyada labada daan baa isku dhow isqaniinaan marka waxaan leeyahay haduu qaldamay hal sii daayo isla markaasna wanaagii iyo samafalku soo qaban jiray maanta dib ha loogu eego oo lagu sii daayo oo taa lagu dhaafo haduu deenu markuu wanaagu sameeyo iyo waxa la yiraahdaa nin kasta wuxuu dhigtay u dheefsadaa wanaagii uu sameeyay iyo samafalkii iyo dadkii dayartaa uu quudinayay hadii maanta lagu sii deyn waayo hadhowto ilama hayna qof kale wanaag sameeyay wixii loo tixgelin doono waxaan leeyahay in qalad yar oo galay markayna muuqan waxyaabaha kale uu hayay bulshada iyo dalkaba ay ha muuqdaan wuxuu sameeyay wanaagu sameeyna amar xaasil lagu soo daayo lagu soo si haloo soo daayo markuu xorriyadiisa dib ha u helo Cabdimalik Musaacid oo ahaa nin samafalaa nin caawin jiray wadarkiisuna waxa miidiyaha iyo ka hadlayay muraayadaha dadkii masaakiinta ahaa ee caawin jiray oo imika daryeel la waxaan leeyahay kuwaas oo la dareenay kuwaas oo ka damqanaynaa maanta kuwa hadii xukuumaddu ku sii deyn weydo waxay ka dhigan tahay kuwa marka ayagana dan laga malaha marka iyaga kuwa hadda hoos loo eego oo waxay ka dhigan yihiin maanta kuwaas carruur joogdo kale wana la garanayaa carruur joogday waxay noqon karto marka waxaan leeyahay Cabdimalik Musaacid wuxuu aftiin iyo faynis u baxayay dadka danyarta yaan laga daminin isla markaasna xorriyadiisa dib u helo intaas aan ku soo koobayaa